madaxweynaha galmudug oo maanta cadaado ka daafuray kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada galmudug ayaa sheegay in maamulka uu madaxweynaha ka yahay uu u baahan yahay horumar badan taasina ay saldhig u tahay taasin la gaaraana ay baarlamaanku saldhig u yihiin axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo uu heliyo ku xigeenkiisa ayaa maanta waxa ay daafureen kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaana ka qayb galay munaasabada wasiirro ka tirsan maamulka iyo qaybo ka mid ah bulshada rayidka oo halkaas lagu casuumay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa sheegay in kalfadhigani sharciyo badan oo muhiim u ah hay'adaha maamulka ay hor yaalaan baarlamaanka mudanayaasha xildhibaanada kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug ee maanta u furmaya waxaa noo horyaala shaqooyin aad u fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ansixintii xukuumadda meelmarinta miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee 2017 hindisa sharciyeedyadii kale oo ay muhiim u tahay in la ansixiyo si xukuumaddu ay u dhaqan geliso madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay ku dadaalaan maarmarinta sharciyada aan looga maarmin shaqada wasaaradaha kala duwan ee maamulka si loo dardargeliyo howlaha horumarinta deegaanka kalfadhigiina waa noo furan yahay xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan u soo xaroodaan inta maqan oo shaqadoodii qabsadaan oo shuruuc badan baa jirtay shuruucda gudbiyaan si loo shaqeeyo haddii kale golaha wasiiradu ma shaqayn karaan haddii aysan shuruuc lahayn waxaan sharci lahayn ma shaqeeyaan wax sharci daraana inaan ku tilaabsanno ma rabno wax kastaa waa inay sharci yeeshaan tariifadii canshuurahan samaysnayn waxaan guddiga cadaaladdan samaysnayn waxyaalo badan horumarinta lafteeda prioritiska say u kala horrayso waa in loo sameeyaa maanta ma abaaraa loo diiqaa ma jid baan dhisannaa ma guri baan samaysanaa waa kala horraysaa hadba middii ugu soo horraysa in siday u kala horreeyaan qorshaynta u haysaa la rabaa wax allaaliya wixii dhib ah ama xumaan iyo ama mashaakil nagu abuurayana inaan ka hortagnaa loo baahanya rag iyo dumar waa inaan u istaagnaa inaan nabadayno gobolkayaga in gobolkayagu socdo in gobolkayagu dhaqaale helo jidadkii iyo dekedii iyo wax waliba insha allah jidkay ku soo jiraan waana imaanahayaan waxaan rajaynayaa muddo gaaban gudaheed in shaqa ka bilaabato bisha soo socotee 9aad 20keeda waxaan keenaynaa wixii wax lagu dejin lahaa dekadda waa furaynaa jidkii yaraayoo 60 kilomitir ahaana waa dhammaanayaa waxaan rajaynaynaa isagana in laamina loo saaro USAID-kan warsannay ilaahay waxaan ka rajay ilaahay aqbal siiyo waa u qornay annagu jidka inta kalena waan samayn doonaa dekeduna waa noo furmaysaa canshuur baan heli doonaa waxaan noqon doonaa maaragtay dad isku filan insha allah hadda gacantaan horsanaynaa liibaan axmed cabdi kalson TV cadaado.